السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada walaalayaal channelkiina waxba crypto oo laakiin maxamed jaamac intaana horta bilaabin mowduucan ka hadli doono maanta waxaan doonayaa inaan halkan ugu mahadceliyo walaalaha wax walba crypto ku xidhan taasoo maasha allah aynu si wacan u gaadhnay 1000 subscriber aad iyo aad baad u mahadsantii walaalayaal tanna maasha allah dhiirigelin wacan bay noqon doontaa si aan maaragtay waxyaabaha kala duwan oo caalamka kriptada ku saabsan insha allah halkan inagu soo bandhigo mustaqbalkana insha allah waxyaabo fara badan oo insha allah aad ka wada faa'idi doontaan aynii soo bandhigayaa aad iyo aad baad u mahadsantiin ilaahay khayr hayna siiyo wiigii hore laba live baan soo galnay insha allah mustaqbalkana qaar kale aynu soo geli doonaa musaabaqadii aanu sameynay give awaygii horena qofkii ku guulaystay videogii ugu dambeeyay ayaan soo bandhigay oo halka live anigoo ku jira aan shaaciyey marka insha allah si aad uga qayb qaadataan give awaya dambe soo socda waxaan uga codsan lahaa like iyo subscribe haddaad channelka ku cusub tahay noo saar se insha allah waxyaabaha ku cusub cryptocurrency-ga aad uga heshid halkan channelkan waa insha allah kuwa ka faa'iidaystana aad u noqotid biidnillah kusoo dhawaada cryptada haddaynu yara dul istaagno waxaynu aragnaa bitcoin inuu marayo 730,000 ethereumna inay marayso 2,400 cardano dollar xrp oo 60 senti ah solana $90 terra luna aynu kaga hadalnay fiidiyoya hore fiidiyogii aan top 5 cryptocurrency aan ka sameeyey waxaan ku sheegay terra luna inay $50 inay soo taaban doonto kadibna inay noqon doonto areadaasi area wacan oo laga qaadan karo dogecoin 0.15 polkadot oo iyadu ayaan dhaweyd soo taabatay $15 maantana maraysa $18 xaal kriptadu saraxatan aad iyo aad buu xun yahay laakiin qofkii DCA ku samaysanaya ee meelo wacan ka soo gelaya waxaan u malaynayaa inuu asagu guulaysan doono insha allah haddaynu yara dul istaagno coinkanna la yidhaahdo wonderland waxaa la sheegay coinkan inuu scam u noqday kadib markuu eriyadii $9,000 uu ka soo daatay maantana uu marayo 300 iyo jajab walaalo fara badan baa jira oo coinanka total supply-gooda uu yar yahay ku carara oo isla maaragtay coinankaas mustaqbal bay leeyihiin waa fikir wacan waana ku saxsan yihiin anagoo ku taageeraya taa laakiin hadda jeer projectigu wuxuu yahay iska ilaaliyaan oo iska eegaan imika tusaale coinkan haddaynu eegno waxaynu aragnaa total supply-giisu inuu yahay $1,155,000 oo xabadood in la sameeyo waxaa la sheegayaa imika amba wararka ka soo baxay waxa weeye inuu scam u noqday kadib qolooyinkii sameeyey ayaa lacagtii oo dhan la baxsaday markii all time high-gan ay gaadhay coinkanna taariikhda haddii dib loo raaco dadkii aasaasay iyo dadkii ka dambeeyey sameeyey waxaa la sheegaya inay baanan aad iyo aad u caana kasoo shaqayn jireen nimankaasi kadibna qadiyado kala duwan oo maaragtay hadday tahay lacag inay xadaan bank ka xadaan amba dadka ka shaqeeya amba dadka customerka waa baananka ayna ka xadeen kadibna nimankani pyramid scheme waxa la dhahdo ayay sameeyeen oo coinkan wonderland ayay sameeyeen oo caalamka cryptocurrency ay kusoo biireen saasaanay maaragtay khuddadoodii weyneed ugu hirgashay ay iminkana uga carareen maaragtay coinkan haddaynu eegno exchange-yadu ku kala jiro waxaynu aragnaa exchange aad iyo aad aanu caan ahayn inaanay ku jirinba oo ta ugu wacan ay ku jiraan ay ahayd get.io na dadka aad iyo aad ba looga digaa oo waxa la dhahdaa iska ilaaliya inkastoo maaragtay exchange-ka wax yaroo mashaakil ay ka jirto oo dadka badintooda maaragtay aanay ku kalsoonayn marka hadee jeer walaalayaal waxa muhiimsan coinka inaad iska ogaatid dadka sameeyey waxay yihiin taariikhdooda waxay soo sameeyeen hore total supply oo quraata ha isku hadlayn oo ha isodhan maaragtay maadaama uu yar yahay coinkani meel qaali ayuu gaadhayaa fundamentalka maaragtay ku xidhan coinkan hadee jeer aad iibsanaysid iska soo baadh oo maaragtay qof youtubera amba qof kaaga sheekeeyey weliga ha isku hadlayn adigu soo samayso baadhis ku khaas markaa taasina waa digniin hadee jeer iska ilaaliya qodob kale oo aad iyo aad u muhiim aynu dul istaagnaa federaaliga maraykanka ku saabsan amba baanka dhexe maraykanka taasoo arbacadii dhaweyd aad iyo aad loo sugayey wararka ka soo baxaya iyo maaragtay interest rate-ka amba faa'iidada ku saabsan inuu kasoo baxayey taasoo maaragtay wax isbedela aan ka iman qaraarkii ay gaadheen arbacadii oo nimanka maaragtay federal banka maraykanka ay sheegayaan in march sanadkan insha allah inay bilaabi doonaan inay interest rate-ka kiciyaan saraxada arrinkaa ay sheegeen aad iyo aad buu u wacnaa oo waxaa la filinaya maaragtay inuu wax positive suuqa ku noqdo ay arrintaasina maaragtay suuqyada caalamka saacido si ay u soo laabtaan maadaama wigigii ugu dhaweysay aynu arkaynay hadday tahay maaragtay cryptocurrency-ga hadday tahay stock marketyada caalamka kala duwan oo maaragtay dhulkaa galay qodobka kalena dul istaagna waxa weeye stock marketska oo had iyo jeer fikradda in la kordhiyo interest rate-ka ka baqda wigigii ugu dhaweysay la waday oo S&P 500 500 maaragtay stocks ee ugu wacan maraykanka ay wax gaadhayso 9% amba wax soo gashay January quraata
warka kalena wuxuu ka soo baxay shirkadda Visa oo rubcii ugu horreeyay sanadka maaragtay siday u bilaabeen cryptocurrency inay ka ganacsadaan amba kaadhaka lagu iibsado cryptocurrency-ga ay iyagu faa'iido wax gaadhaysa $2.5 billion oo faa'iida ay ka sameeyeen kadib maaragtay dad badan oo caalamka jooga ay u fududeeyeen camaliyadda maaragtay lagu iibsado cryptocurrency-ga ee exchange-yada laga iibsado oo bataaqadooda Visa card-ka ay dadku ku isticmaalayaan si ay u iibsadaan cryptocurrency-ga taasina waa arrin aad iyo aad u wacan oo ina tusaysa shirkaduhu inay doonayaan inay cryptocurrency-ga ay soo galaan oo ay ka ganacsadaan oo xitaa lacag ay ka sameeyaan dadka hantida leh ee la yidhaahdo venture capitals oo cabsi ka qaba stookyada technology-ga ku shaqeeya ee Maraykanka kadib markii sell off xoogan amba si waala maaragtay loo iibiyey stookyada taasoo ay ka baqayaan buurankii muddo badan socday uu soo gabagaboobayo amba nihaayadii uu marayo taasoo aynu aragno maaragtay shirkado badan oo waxa la yidhaahdo earnings oo ah shirkaduhu faa'iidada ay helaan maaragtay hadday tahay 3 bilood sanadkii markay soo bandhigeen shirkado maaragtay ay ka mid yihiin Apple, Google, Tesla iyo shirkado fara badan oo kale taasoo natiijadaha ay soo bandhigeen aad iyo aad u wacnayd oo maaragtay markay natiijadahaas ay soo baxdaan hadda jeer suuqa dib u laabta oo dee hadday natiijada wacan ay yihiin suuqa aad iyo aad u kicisa laakiin doorkan wax kaloo cagsi ayaa dhacay oo natiijado wacan bay shirkadahaasi soo saareen kadibna suuqii kala wareeg buu sameeyo hoos u daatay taasoo ina tusaysa maaragtay weli ina xaalad cabsiya ay ka jirto suuqyada caalamka marka ha la iska ilaaliyo insha Allah DCA coinanka wacan amba stookyada wacan aad danaynaysaan ku sameeya